tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City Pep Guardiola ayaa ku eedeeyay ciyaartoydiisa inaysan si xoogan u cadaadin Wolverhampton Wanderers kadib markii uu xidigeeda Welly Boli u qaatay kaarka roosaha kulankii xalay labada kooxood ku wada ciyaareen horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaana ku xasuuqday dhigeeda Wolverhampton Wanderers 3 gool iyo waxba kulankoodii 22aad Premier League oo xalay ku wada ciyaareen qalcadda Etihad Stadium. Goolasha kooxda Man City ayaa waxa ay ka kala heshay xidigaha kale ah Gabriel Jesus oo 2 gool iyo weliba Conor Gonde oo tareetada iska dhaliyay. Shabakada Sky Sport ayaana ka soo xigtay waxyaabihii ugu muhiimsanaa uu ka hadlay Pep Guardiola kadib markii ciyaartu ay soo ilaatay. wuxuuna yiri, waxaan la ciyaarnay daqiiqado badan 10 ciyaartoy waxay ahayd inaan noqono kuwa intaasi ka awood badan dhanka weerarka. waxaa jira difaac xoogan, sidaa darteed ma aan siinin fursad badan kooxda Wolverhampton Wanderers. waxaan helnay 3 dhibcood si aan u sii cadaadino Liverpool. marka aad ciyaarayso kulan ka tirsan horyaalka waxaa suuragal ah inaad dhibco lumiso. waxaan haysanaa rikoor cajiib ah, laakiin waxaa sii samayn karnaa shaqo intaas ka fiican, ayuu yiri Pep Guardiola. Gabriel Jesus waxa uu doonayaa xilli kasta in uu soo bandhigo wax walba oo awoodiisu gaarsiisan tahay, balse xilli kasta waxaa muhiim ah in weeraryahanka uu dhaliyo goolal. sidaa darteed waxa uu dhaliyay 6 gool labadii kulan ee la soo dhaafay ciyaaryahanka lagu magacaabo Gabriel Jesus. si kastaba ha ahaatee, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa guusha ka gaartay kooxda kubadda cagta Liverpool. waxay markaan soo yareysay farqiga dhibcaha ee u dhexeeya labada kooxood iyadoo 4 dhibcood kaliya ka hooseysa kooxda hogaaminaysa horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League ee Liverpool.